السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة محمود عبد الله حسن. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Malawi. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka Malawi ama Republic of Malawi waa dal ku yaala koonfur bari qaaradda Afrika. Waqooyi waxaa ka xidheeya dalka Zambia, Tanzania-na waxay ka xidheysaa waqooyi bari, dalka Mozambique-na wuxuu ka xidheeyaa bari iyo koonfur galbeed. cabirka dalka Malawi waa 118,000 oo kiiloomitir oo square ah. tirada dadweynaha ku nool dalka Malawi sanadkii 2018 wuxuu ahaa 18,140,000 oo qof. caasimadda dalka Malawi magaceedu waa Lilongwe. diinta dalka Malawi 80% waa Kiristaanka, xagga Muslimiintu yihiin 13%. luqadda rasmiga ah dalka Malawi waa af Ingiriisiga. lacagta laga isticmaalo dalka Malawi waxaa loo yaqaanaa Malawi Kwacha. madaxweynaha dalka Malawi magaciisu waa Peter Mutharika. dalka Malawi xornimadiisii wuxuu kala soo noqday gumeystigii Ingiriiska 1964. dhaqaalaha dalka Malawi wuxuu ku tiirsan yahay beeraha. xagga Malawi ay beerto tubaakada iyo shaaha. dalka Malawi waa dal faqiir ah oo ku nool deeq-bixiyaasha adduunka. dalka Malawi wuxuu dhoofiyaa tubaakada iyo shaaha. waxbarashada dalka Malawi aad ayay u liidataa. xagga ardayda dhigata dugsiyada hoose iyo dugsiga sare aad u yar tahay. caafimaadka dalka Malawi aad ayuu u liitaa. xagga saddexda cudur ay ugu waaweyn ay kala yihiin AIDS-ka iyo Jaundice-ka iyo malaariyada. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu nii rajeynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
channelka subscribe si videoda like gare, comment na xagga hoose ku qor.